الحمد لله رب العالمين ساكا waxaynu isugu nimi kulan maanta iyo bariba socon kara waanu doonaynay inaanu ragga tafatirayaasha iyo mulkiilayaasha hay'adaha warbaahinta ee Soomaaliland ka hawlgala kuwa wadaniga ah iyo kuwa ka hawlgalaba aanu kula socodsiino hadba wixii sida wada shaqayntu ay noqonayso iyo warbaahintu maanta xaaladda ay ku sugan tahay labadaba dulucda ugu weyn ee saaka ujeedadu waa afar qodob afarta qodob ee aan doonaynay inay ummaduna nala ogaato saxaafaduna ogaato hay'adaha warbaahintuna ay ogaadaan waxa weeye suxufiga iyo saxaafadda labadaba xeerarka caalamiga iyo kuwa wadaniga labaduba waxay ku waajibiyaan waajibaad tiro badan oo ay ugu badan tahay sida uu u ilaalinayo akhlaaqiyadka suxufiga wanaagsan looga baahan yahay sida uu u ilaalinayo akhlaaqiyadka suxufiga caalamiga uu la wadaagayo sida uu u ilaalinayo akhlaaqiyadka suxufiga wadaniga looga baahan yahay sida uu u ilaalinayo nabadgelyada ummaddu ay leedahay ee ku wada noolaanshaha sida uu ilaalinayo sida uu ilaalinayo xiriirka bini'aadmiga u dhaxeeya ixtiraamka sida uu ilaalinayo sida uu ilaalinayo dhaqanka wanaagsan ee ummaddu ay leedahay iyo dhaqanka wanaagsan ee diinta labadaba hadduu intaa ka soo gudbo waxa weeye qofkaas qof tabarka goostay suxufi wanaagsanna maaha magac kale u qaadanaya maanta tusaale ahaan waa ogtiinoo erey fara badan baa si badan loo isticmaalaa qabyaaladii baa badatay baa la yidhaha qabyaaladii baa badatay qabyaaladii may badanin waxa batay suxufiga magaca qabyaalada faafiya waxa batay magaca suxufiga magaca qabyaalada xambaara dhaqanka xun ee ummaddu isku dhibsato suxufiga xambaara baa batay mushkiladda ummadda qayb baynu ka noqonnay haddii aynu nahay saxaafadda waxaynu dhiraandhirinaynay in golaha wakiiladu xeerkii saxaafadda uu soo saaro oo uu amendment ku sameeyo maadaama xeerkii hore ay ku adkaatay maxkamadaha dhaqangelintiisa maanta xukuumadda waxaan idiin karaynaa xeerkii number 27 idinku haa iyo maya midun idhaha xeerka number 27 waa xeerkii hore saxaafaddu raalli ma ku tahay war ma ku tahay idinkaan id weydiiye xeerkaa ma ogolidin xeerka dambena ma ogolidin war adeer dhegeysta adeer ilaa meeshu waa dale dhegeysta adeer war nabiga ku salliya meeshan dal baynu joognaa adeer waa dal weeye ummad baana lagu dhaqayaa ma aha ciyaalnimo iyo carruurnimo maaha xeernaba ma ogoli meelay dunida ka jirtaana ma jirto meel aad ku soo noolaateen oo aad ku aragteen inay sida wildka loo noolaado oo aanu dabar jirin oo aan diini ku xidhin oo aan xeer ku xidhin oo aan dhaqan ku xidhin oo aan xidid ku xidhin oo aan sokeeyo ku xidhin oo aan walaalnimo ku xidhin oo aan tolnimo ku xidhin sidaa wuxuun baa lagu helaa duurjoogta laga helaa duurjoogta waxaan idin leeyahay waa inuu dabar jiraa adeer dabar kaa qabta inanta oo kaa qabta sodohda oo kaa qabta sodoga oo kaa qabta qofka wada nooshiin oo kaa qabta qofka madaxda ah oo kaa qabta sheekha oo kaa qabta baac mushtarka oo kaa qabta nolosha oo kaa qabta nabadgelyada xeer waynu jiraa maantana hal xeer baynu haynaa xeerar saxaafadda khuseeya hal mid baynu haynaa waa xeer number 27 waa xeerka ay ururadiina saxaafaddu inta badan ku qaylinayeen xeerkaa naloo daayo xeerka number 27 ee saxaafadda ee madaxweyne daahir yaala saxeexay ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraay saxeexay ee golaha wakiiladu ansixiyey ee golaha guurtidu ansixiyey xeerkaasaa laga bilaabo maanta idinku dhaqayna
xeerkaasi wuxuu idin tilmaamayo akhriya xeerkaasi wuxuu idin farayana akhriya qodobada uu idin farayana wixii maanta ka dambeeya waxaynu saxaafada isku ogaanaynaa xeerkaasi akhlaaqda suxufiga wanaagsan oo dhan buu tilmaamaya waxa ka maqan oo kaliya markuu diido maxaa la yeelayaa wuxuu tilmaamayaa in la sameeyo guddi complaint committee ah oo guddida anshaxa ee saxaafadda ah oo ka madax bannaan meel walba guddidaa saxaafaddana ururadiinni saxaafadda waa la tashan doonaa guddidaana waa la samaynayaa guddidaasaa saxaafadda qiimeynaysa monitoring bay samaynayaan xafiis baanu u samaynaynaa iyagaa u dhaxayn doona ummadda iyo saxaafadda dabadeetna waxay ka koobnaan doonaan suxufiyiinta waaweynaa ee intiina ay hortaagani ugu garaadsateen iyagoo saxaafadda ku jira ee aqoonta u lahaa saxaafadday ka koobnaan doonaan oo madax bannaan guddidaasaa qiimeyn doonta oo tv-ga dhegaysan doonta oo wargeyska dhegaysan doonta oo websaydyada kuwa muctarifkaa dhegaysan akhriyi doonta websaydyada kuwa muctarifkaa akhriyi doonta marka waxaan idin leeyahay oo dardaarankaygu yahay war xeerkaa saxaafaddu wuxuu idiin ogol yahay inaad noqotaan suxufi wanaagsan oo intaa aan sheegaynaba ixtiraama oo horta marka hore intaanu saxaafadda gelin xeerarka barta oo barta xeerarka dalku leeyahay iyo kuwa dibadda labadaba oo barta waxa qawaaniinta dunida ee suxufiga wanaagsan sida uu shaqeeyo barta horta marka hore barta oo dabadeetna intaad rikoorkii waxan intaanad isticmaalin adigoo xeerarkii garanaya oo dhaqanka wanaagsan ee saxaafadda wax ka garanaya ummadda u kaalay ilaah baan idinku dhaariyay miyaan ceeb idinku ahayn inaa maalin walba nin hanjabayo farta lulaya oo ummadda oo dhan u hanjabaya oo le balaayaa dhici doonta aad tidhaahdaan hot news balaayaa dhici doonta wariyay dhicin balaayo inay dhacdo inaad ka shaqaysa maaha hot newsna maaha balaayo inuu ku hanjabana maaha waa qof ha qaadin qofka xanuunsanaya warka eeg akhlaaqda haddii aad sabiga waraysato sabiga haddaad qofka xanuunsanaya waalan waraysato qofka xanuunsanaya waalan u dacwood in la daryeelo u dacwood u hadal laakiin isagii intaad soo waraysato ha odhanin muxuu yidhi isagaa inaynu u dacwoonno u baahanoo u nasto waxaan ku leeyahay qofka xanaaqsan ee aada u xanaaqsan ee qowlaladaa ka xumbaynaya ee cid alle cid aysa soo qabteen aanad garanayninna bal hubi cidduu ka xanaaqsan yahay innagu waxaynu dhisaynaa dal waxaynu dhisaynaa nabad waxaynu dhisaynaa qaran waxaynu dhisaynaa dal dimuqraadiyaynu dhisaynaa suxufiga wanaagsani qofkan uu waraysanayo xogtu hayo mid lamidabu hayaa dabadeetna wuxuu idhaa wartaa ka daa miyaanay sidaa iyo sidaa iyo sidaa ahayn adoo og haddaad u sii dayso untiisa soo mushkilad maaha waxaad ogtayd xogogaalka ka tahay ku qabo waxaad tiraa wardee ka daa sidaa maahe waa tii caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa ahayd ninbaa meesha soo istaagaya maalin walba qof mas-uula buu iska caaya ilaa uu aakhirka yidhaahdo qofkaa mas-uulkii maba jiraba dabadeetna waxaa odhanaysaan waa maba jira buuri hebel wuxuu yidhi maba jiro ma isagaa jiridiyo jiridaan la-aan tahay inaad dhaqankaa ilaalisaan baynu u baahannahay waxaan uga socdaayoo keliya nimanka mulkiilayaasha iyo tafatirayaasha waan ku wargelinayaa reporteriskana waan ku wargelinayaa maanta wixii ka dambeeya xeer number 27 baynu ku dhaqmaynaa wiigan gudihiisana waxaynu soo saaraynaa guddidii complaint committee-ga oo ku meel gaadha oo aanu xafiis u samayno oo shaqada sii bilowda oo madax bannaan oo suxufiyiintaasay ka kooban tahay madaxa bannaan ee aad taqaanaan waa qodob bal markaa station place damboonu idin geenaynaa ma jirtay laakiin complaint committee-gu wixii ay idin yidhaahdaan guddida ashaxo website-ka caynkaas waa sidaa iyo sidaa khaladaadkaasuu galay intaasoo goor baanu u dignay intaasoo goor baanu canaanay intaasoo goor baanu sidaa samaynay itigiska saxaafadda ee ku gafay waa kaa qodobka number hebel xeerarka noocaasa ayuu ku gafay ummadday u sheegayaan markay ummadda u sheegaan haddaad caan ku noqon jirtayna caan ku noqo hadday maalintaas sumcaddu kaa dhimanaysana alfaatax hadda annaguna waa kuu ducaynayna waxaan intaa raacinayaa oo dheer maanta waxaan doonaynaa saxaafaddu inay noqoto mid xadidan
waxaynu u baahannahay inay saxaafaddu noqoto mid la garanayo oo saxaafaddii heblaayo jariidad hebla wargeys hebel tv hebel website wuxuu doonaya ha ahaado saxaafadda maanta diiwaan gashan ma jiro mid cashuur bixisaa ma jirto waa institutionada xafiisyada leh kuwa aan xafiisba lahayn ee wareegana inay de meel loogu soo hagaaga yeeshaan oo ummaddu ugu soo hagaagto wey ma aha hay'ad saxaafadeed inan yar jeebadda iskaga sito oo uu yidhaahdo waxaan ahay website hebel xafiis ma laha meel loogu hagaaga ma laha meel loogu ashkatoodo ma laha waa beyj uu isagu furtay dabadeetna siduu doono iyo maalinba doonkiisa wuxuu doono uu ka yeelo laakiin waynu naqaanaa meel lagula xisaabtamo complaint committee-gaasi meeshay kula xisaabtami lahaayeen iyo siday ula xisaabtami lahaayeen baynu samaynaynaa halkan maanta waxaan ku hayaa liisaskaasi imika uu ka soo noo keentay wasaaradda iyo xeer ilaalintaan labadaba ka baadhnay waa arkaysaan beyjkaa buuxa beyjkaa labaadna waa arkaysaan waxaas waa wada hay-ado saxaafad warbaahineed waa joornaale iyo tv-yo weliba website-ki kuma jiro website-yada kuma jiraan baalahaasi inta soo baxdaa way yar tahay joornaalada dhowr iyo kontonka ah ee wargeys een mid qura maalintii la register gareeyay dabadeed aan lagu soo noqonin 14 baa ka soo baxa 14 wargeys oo kaliya laga bilaabo maanta waxaan idinku yeernay inaanu ku dhawaaqno saxaafadaasi waxaanu liisamada bilaabaynaa toddobaadka soo socda waxay imanaysaa xafiiska agaasimaha guud form kaasa la buuxinayaa waa la register gareynayaa form kaasa buuxinaysaa haddaad website leedahay haddaad jariidad leedahay haddaad maxaan idhaahdaa tv leedahay hay-ad warbaahineed haddaad leedahay madbacad haddaad leedahay kuwan xayisiisyada iyo boorarka waaweyn samaystaan agaasimaha guud xafiiskiisa imanaysaa foomkaasaad buuxinaysaa waxaanu kuu samaynaynaa kaarkii suxufiga ee aad kaga qaybgeli lahayd hay-addaa warbaahineed kaga qaybgeli lahayd goobaha loo baahan yahay waxaynu kuu samaynaynaa registrationkii baanu kuu samaynaynaa waxaanu kuu samaynaynaa liisankii cashuurtaad ku bixin doontaa sanadkii hal mar waana laguu sheegi doonaa meeshaa wasaaradda maaliyaddaad ku shubi doontaa wixii xaq uu dalku kugu yeeshay ee cashuura laakiin maalin dambe cashuur la-aan muwaadiniintaynu la midnahay waa inaynu bixinaa cashuurtii bixinaa waxaanu ka salgaraynay dhammaan jaraa'idka iyo tiifiyada jeebadda lagu haysto ee lagu haystay wax ka badan 2 sannadood sanad 6 bilood ee aan weli shaqayn ee maalinta la doono lala soo baxayo waa ma hayst cashuur may bixinin liisanna may haysanin jeebadda lagu haystay registration bay ahayd warqadda diiwaangelinta xeeraarinta guud bay ahayd ma jirto baan ku waxaana weeye liisanka waxa bixiya wasaaradda line ministeriga masalan liisanka ganacsiga waxa bixisa wasaaradda ganacsiga liisanka jooyada hay'adaha samafalka waxa bixisa wasaaradda qorsheynta liisanka iskuulada lagu bixiyo ee lagu dhiso waxa bixisa wasaaradda waxbarashada liisanka warfaafintana waxa bixinaysa wasaaradda warfaafinta dhammaan liisamadaas oo dhan dadka samaystay institutionadaasi ganacsi ama meheradahaasi shaqo xeer ilaalinta guud way diiwaan gelisaa registerka guud si haddii hadhow murmaan shirkadaasi ama institutionkaasi ay ugu garnaqi karto xeer ilaalinta iyo maxkamadda ugu garnaqi karto liisankaana waynu samaynaynaa adigana waxa lagu tilmaamay dadka ugu dhow saxaafadda waxaad xakameyn ka mid ah xariga saxaafadda madaxa bannaan lagula kacayo yaana qurux badan inaad inta iska casishaan ma maqlaysaa nimanka sorry anigaan ka jiro way tahay weydiiyay
هذا رأي أدنى ويدي هذا هاي وكا أنا حتى وزير مرفقية ورانا شو بقول المتهل كيلو من الصحافة داسية حكومة ده يسوق ده بدي كلام عن الشخص عفوا هذه وزير جاي الصحافة ده تصل له وكا جوابي هذيك كا جوابي وحويان وحن وقت جوابي ها وحوي السؤال هذا جوابته روان كا جوابي هرتا أنا شرف دعوة جماعة كلجي إذا أنا كلجي جماعة هذيك كوكت هاي أنا جنوي كوكت هاي صحافة ده كوكت هاي عيب بيكوت هاي إن الصحافة دي ستيشن بليس إسهايستانون عيب صحافة بيكوت هاي صحافة عيب كوت هاي إن الشرع تو يرى صحفيين تواوينا وأن كوري قبيلة كون كبا وحكوا بالشيء مرون بيهاي إن يقول هذين صحفيين تواوينا دو يقرن ما وحي هيد وحي إنه صامر وحي وقفوا الحماة الدنيا ويشوغ الرجل يقول لي قارم كهال كانوا يتاجين صحفيين تواوين بيهاي نادر تفترياش واوين ويشيغن waxay yiraahdeen home cable kuwa uu sii daayay qaarkoodii sare haduu ina tuso waa gees kaba la baarashaynay in buu ina tuso afar inanoo kamarad sitay ayaa midna yiri kamarada igu qaba cagaha midna yiri sidan igu qaba waa wixii ugu badnaa waa waxa weeye musuqmaasuqi ugu xumaayay laga sameeyo meherad saxaafadeed suurtagal maaha marka home cable inay waxan iskoobsateen inay sii dayso ma ahayn sida aanad adiguba u qorin adigu waa la xidhado qurun baad isleedahay bariba aadna lagu xidhayaa oo aad u xanaaqsan tahay sida aad adba uga xishootay inaad u qorto inay home cable uga xishootaa baa يا ما هي سميان sidoo kale eegaysigu waa xididada qaar ka mid waa wariyaal baa ahayn Soomaali طبعا marka leedahay warbaahintu waxay xambaartaa qadiyaalada torneel baa haysin jirtay waqtigii dawladda diyaarey waxa yaabihii adigu aad qori jirtay eedahooga waxyaabaha kala macradku soo qaataan bay kamid maxay iska bedelay dareenkaaga hore iyo ka baxsay koow hayla labaad marka leedahay institutions waxa sameeyaa ka wariyaha institutionka ka howlgala ayaa kaarku ka howlgalo sameeyay ما هذا روح ويا هالكارتو سؤال شهران كاجي جوابي أيان ورجيس كصحن صحو وإما كسريبان كي هاي من تفترها أيان كأهان تري تفتره ورجي ما عاقب يالد دمان استعمالين برجاد قواد يريد لكن تريد الدم ما عاقب يالد ورجي ما استعمال عيب بكاهد أنا وحن استعمال تري لكن أرتكل وقول تري وحن كلا أقاني فالله يور كان كلا أقاني ورك وور فالله waa حتى marka qaabka su'aasha imika ii weydiinaysan sida dadka loo interview gareeyaa waxa weeye waa cilmi dhan iyo aqoon gaar ah marka idaacadu shaqeyso iyo marka tiriidadu shaqeysana farq bay leedahay iyo marka TV u shaqeyso adiga miyaanay ahayn inaad shaar gashato maaha su'aash miyaanay ahayn ta adigu go'aan ha gaarine weydii su'aasha wixii aad u jeedayo su'aal cadaan weydii sida adiga kula tahay sida sharciga ma sida adiga kula tahay sida sharciga ma waxaan ku yiri talabaadna waxa weey kaarka cid loo sameeyo xafiiskaaga asmaa guud ba tagaysan anaga ururada saxaafadu waxay noo soo gudbin doonaan liisaskiina suxufiga doonaya inuu ka qayb galo shir jaraay security baan u baahanahay nabad buu dalku u baahan yahay waxa noqoteen 78 imika inta ku taagantihiin TV-yada waan ka codsanaya inay kamarada ku qabtaan intiina halka taagan 60 ka 50 ka liiskaasi imika halka soo fariistay dhowr iyo 40 meel lagu yiri warimsaahan ayaa imika ku taagantiin institution mid website iyo mid TV iyo mid idaacadaba maalin walba dhalinyaro cusub baa ku soo kordhaysa saxaafadii oo wajigeeda hore loo aqoon waxa doonaysan inuu minister iyo hay'adaha ajnabiga iyo madaxweyne ashir jaraayad ugu tagtaan nabadgelyana waa loo baahan yahay security-gana waa loo baahan yahay qofkii in la aqoonsadaa loo baahan yahay marka hore institution-ku ka socdo waa in la aqoonsadaa waa oo liisan leeyahay mar labaadka isna waa inuu card leeyahay uu ku galo shirka jaraayad ku galo
وأنت نوجدنا هاي هنا ويدي هاي وضع هذا قصة محي هدوناك واي ما هي ما أوران waxaan ku iri kuwa xambaaraa batay ها xukuumada ka horeeya soo maray saxaafaduna intaa way jirtay waxaa sabab wax inay baad kuba eedanaysaa inay wariyaashii u xambaarayaan qabyaaladda wariyaashu waxay u aashadeen xaqadii bulshada ka jirtay inay gudbiyaan waxaa ku jira anigu wasiir ku xigeen warfaafinta baan ahaa waqtigii cigaal waan kuu soo tirin doonaa wargeyska jamhuuriyadda iyo wargeyska haatufo qura soo bixi jiray iyo maandeed website ma jirin wax kale ma jirin TV Space Channel baa jiro Hargeysa ku koobnaa waxa ku xigay waqtigii daayirayaale website-yada batay waxoogaa bay noqotay dhowr iyo 10 bay ahaan jireen dhowr iyo 10 caana ayay ahaan jireen waa kuwa caanka ah waliba imika si ah qaarkoodna meesha ka baxeenba wargeysyaduna intaasay kordheenoo waxaanu ahaan jirnay 5 jiriidado 5 wargeysoo kaliya wargeyskii jamhuuriya wargeyska haatuf wargeyska geeska wargeyska saxan saxo wargeyska ogaal iyo wargeyska dawan wargeyska markii dambana bahalkii maxaan raahdaa waxa soo baxay waaheen iyo wargeyska lagu raahdo maxaan raahdaa ma bahalkii muxuu ahaa yool geeska adeer marka waxaan u jeedaa marba way korayeen maanta waa tan oo tiradiin waxay maraysaa intaas waa nigan ku tusaya liiska waa nigan ku tusaya waa wada wargeys iyo kuntum wargeys miyay ka soo baxaan Hargeysa aad ku weydiiyay waa su'aashii labaad dareenka bulshadu maxaa ku diiday inaad qolaa ku iman waxa ku imanaya 6 nin waxay adeer kugu oranayaan haddaanu reer hebelnahay waxaanu go'aansan reer hebel oo dhan ma arkin meel ay reer hebel ku shirayeen ma tagin 6 nin oo qura ku yimi markay ugu bataan ama 3 nin reer hebelkay la hadlayaan qaarna waxay joogan Switzerland qaarna London qaarna waxay joogan Hargeysa qaarna Berbera waxay weerarayaan reer hebel kale waxaanu ku leenahay qabyaalada xambaarin qofka ra'yigiisa xambaar isagoo qofa ururka xambaar isagoo urura xisbiga siyaasadeed xambaar isagoo xisbiya laakiin reer hebel maagaya ama reer hebel dawladnimo maagaya ma wanaagsana waa intaas ma u jeednaa waay hay telefishinka universal laga joojiyay baahinta xilibaad baa saarnay biyaha hadda suuq waxa la sii dhex maraya telefishinka waxa laga qaaday xilibaad anta maxaa ka jira wargeyska bahalka maxaa la yiraahdaa universal TV-ga waa runta wuxuu dalka ka galay dambiyo fara badan arrintiisu waxay noqotay inaynu ka joojino inuu dalka gudihiisa ka shaqeeyo waayo waxa uu haystay ruqsad ah inuu dalka ka hawlgeli karo way dhaqan gashay inta dabadeed oo imika muddo laga jooga dheer TV-gaasi wuxuu ka bixiyay waa maqasheen oo apology buu bixiyay kii barnaamijka saqajaanka sameyn jiray uu meeshii apology buu bixiyo YouTube-yada ku aragtay kii meesha lahaana TV-yadu ka hadlayo apology-gaas uu bixiyay waxaas taasi oo dhacday waxa halkan ergan ugu yimi Garaad Jaamac iyo ugaas Cabdilaahi Garaad Jaamac garaadka Sool oo garaadan ixtiraam weyn u haynaa garaadkaasina isagoo ergaa wuxuu naga codsaday maadaama ay tahay ergadii ugu horeysay isagoo garaada uu la yimaado maadaama ay Somaliland ixtiraamto dhaqanka iyo guurtida iyo ergada madax dhaqameedka maanta inuu isaguna ergo yahay arrintan annagoo ixtiraamayna garaadkaasi waanu dhageysanay waananu ka aqbalnay waxaananu ku xidhnay shuruudahaasi marka ay buuxiyaan ee ay dalka heshiis dambe ula galaan ee heshiiskaasi ay buuxiyaan shuruudihiisa oo aan ka badnayn shuruudaha caalamiga ah ee la isla wada garanaya ee saxaafadda
iyo inuu TV-gaas yahay TV qarannimada Somaliland ixtiraami doona TV qarannimada Somaliland ixtiraami doona marka intaasi fuliyaan diinta iyo dhaqanka iyo nabadana inala ilaalinaya waxba kama qabnada ilaahayba toobada u aqbalaa هاي صح صح adiga iyo niman kale oo badan oo saxaafadda ku jira sumcadda koowaad ka gaadheen oo saxaafadda haddana waxay u muuqataa si aad uga hadlaysa xataa marka la eego inaad maanta tihiin idinku adiga koowaad ee saxaafadda ka mid ah saxaafadduna idinka idin danaynaysay oo islahayd waa dadka idinku soo arrintaasi miyaanay u muuqanin inaad u tihiin dadka ugu fog saxaafadda ee cadowgeeda ما خضرة وحويان أرتاح الحمد لله رب العالمين تذكر دنيا إن المدرسيو والله إلى دريمو إن نمعها هيصنا نمع إنه هيصنا الحمد لله رب العالمين أنا وحنا هاي ملكي لها ورجيز كصح صح وآيات كشقيسو آيات كشقيسو وحنو سوء الله تشانس كا إن ورجيز كا هذا كشقيا هذا السؤال سني بيتيسو أنا أنك هاجي جواب نمعها سنة وأن عيبي إنك لا راعين حماننا يسوق قادم وقضب كلامنا وندي شيء يا صحافة من تعنو أطودني إيه أنت عنو ضدك كاينو إذن كانوا وقتين إما كمشكلة وحوي بريجورة صحافة هي حكومة ده أمر مجري إما كضدك عادي هابا صحافة إن نعانا مكبقنا dadkii caadiga ahaaba inay saxaafadda iyo madax banaanida nacaan oo la nacsiyo oo ay yiraahdaan yaa inaga qabta ayay joogtaa waxa quraynu laba dibla idinka aynaana waa nabadgelyada dhaqanka iyo diinta iyo dawladnimada bas ayaan laba dibla idinka aynaa bal intaad imika soo kacdo anigu waxaan imika kugu dhiirigelinayaa inaad samaysato wargeys aan noocanba ahayn dadka oo dhan soo jiidan kara dadka oo dhanba soo jiidan kara oo muxuu ka sheekeynayaa intuu subax walba shir jaraayadu Cabdilaahi ku saleeyay ku kaleela 100 arrin oo kale ayuu u kaleela oo kale oo wanaagsan oo bulshaduna ay u baahan tahay mujtamacuna uu u baahan yahay anigu khadaro saxaafadda cadow ma nihin hiil baanu nahay waxaanu imikana samaynaynaa waynaga samaynaynaa waa nagan xeerkii saxaafadda ee 27 ku soo celinay xeerkaasina uu dhaqan galaya midna waan idin sheegay in yar raaliga ah in yarna waan idin sheegay war xeerkaasi saxaafadda ee xeer 27 waa xeerkii ay ogoleeyeen isagaynu ku dhaqmayna waa xeerkii ay saxaafaddu wax ka samaysay waa xeerkii ay maxkamaduhu lahaayeen qawadka ka muujiyeen iyo xeer ilaalintu yeelkay isagaynu ku dhaqaynaa وحاضروا وسيلة وفافيتها تاريخ الكلي إن حرمور باهي أي مجسم لطيب إرادة سلبية إذا يجين إن كان واحد كذا واقعي إن أتقار كله أول يستيسن ودولتي كهرية مسوي شيء وأنت سود دولتك بدنيا وبشرو شرعية إن الحري دول يعني بيان الأوران كريم عبورنتي أصحابك كويسين كوميديا وسير أيام دوني سنة سيلم الله waan ka jawaabay adeer horta ninkaasi himilo ka socda wargeyska nin kale waa himilo wargeys wanaagsan weeye laakiin imka ninka hortiina iga been abuuraya markuu bari baxana muxuu sameynaya anigu ma oranin meel baan xidhaya ma oran meherad jirtay baan xidhaya miyaan idhi waxaan idhi adeer kuwa aan shaqaynin ayaanu anagu ruqsadaha jeebada lagu haysto ayaanu ka sargareynay waa qodobka labaadna waxa weeye meheradaha xarumaha ah ee ama bilays joogo ama aanu joogin waa ogtiino muwaadiniin bay isqabteen maxkamaday uga dacwoodeen maxkamadii baa go'aan ka gaaray ma aha qaar aan anigu ashkateeyay ma aha qaar aan anigu bilayskii soo qabtay ahaa ma hadaa leedihiin maxaad bilayskii maxkamadda isaga dhigi weydina waa ogeedeenoo qaar baan iyadoo maxkamaddu xukuntay jeelka kala soo baxnay casarkiina sidaada naga been abuuray